الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحان ماشان كسو جيدين دونا كلمة كسابسا oo kamid ah muhaadaraat tixana ah oo aan ka qaban doono hadii Ilaahay uu yiraahdo naqdinta madhabkan wahabiyada ama qolooyinkan la baxay magaca salafiyada madhabkooda ayaan insha Allah taala iyo usuusha ay ku dhisaan oo aqeedadooda asalka u ah iyo usuushaas furuucda ay hoos geeyaan ayaan sharaxi doonaa insha Allah taala markaas ka bacdina waa naqdin doonaa hadii Ilaahay uu yiraahdo marka koobaad firqo kasta oo aqeedo leh waxay ku dhisaan aqaaidkoodaas usul ayay ku dhisaan usuushaas agtooda musallam ku ah ka bacdina furuucda ay hoos geeyaan firqadan marka wahabiyada ah waxay leeyihiin usul aqadiyahay leeyihiin marka waxaan sameyn doonaa insha Allah taala usuushoodaas aqadiga ayaan sharaxi doonaa marka koobaad marka labaadna waxaan fiirin doonaa usuushaas aqadiga masaa'isha ay hoos geeyeen oo aqeedada ah kuwa ku saabsan daatada Ilaahay kuwa ku saabsan afcaasha Ilaahay masaa'isha ku saabsan sifaadka Ilaahay ka bacdina waxaan cadeyn doonaa marka aqeedadaas wahabiyada iyo aqeedadii salafkii ummadda salafus saalix inaysa iswaafaqsanayn oo farqi weyn u dhaxeeyo oo aqeedada nimankan wahabiyada ama salafiyada ay aaminsan yihiin ay tahay aqeedo gabi ahaanba khilaafsan aqeedadii kitaabkii sunnada laga qaatay oo salaful umma ay noo soo gudbiyeen si marka aan uga hadalno usuusha aqaaidka wahabiyada waxaan ka soo qaadan doonaa maraajicdooda asaasiga ayaan ka soo qaadan doonaa waxaan ictimaadi doonaa kutubta ibn Taymiyyah iyo ad-da'wah an-najdiyah culimadii kutubtii ay ka qoreen iyo kuwa mucaasiriinta ah culimadooda mucaasiriinta kutubtii ay qoreen kulligood waan ictimaadi doonaa waxna waa ka soo qaadan doonaa marka usuushay ku dhiseen aqaaidka waxa kamid ah asalada ugu waaweyn waxa kamid ah asalka la yiraahdo xawaadithun la awala laha حوادث iyo waxyaalo soo duriyay oo aan bilow lahayn iyo asalka kale la yiraahdo hulul hawadith fi dhaat al-aliyah hawadith inay ku soo duriso daatada sareysa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kamid ah usuushooda qidamul aalam bin nooc aalamku nooc ahaan inuu qadiim yahay iyo usul kale ay ka aaminsan yihiin daatada Ilaahay sifaadka Ilaahay aan arki doono asalka koowaad marka aan sharaxi doono wuxuu noqonayaa hulul hawadith fi dhaat al-aliyah asalkaas marka waxa laazimaya asalka kale oo xawaadithun la awala laha labadaas asal marka si aan u sharaxno waxaan ka bilaabaynaa marka xulul xawaadithkaas masaa'il aqadiya oo waaweyn oo ay ku dhiseen mas'alada koowaad oo aan ka bilaabaynaa waxa weeye mas'alada loo yaqaan mas'alatu kalaamillaahi ta'ala ama quraanka kariimka ah muxuu yahay maxay ka aaminsan yihiin quraanka kariimka waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay wax xaadith ah oo soo duriyay oo makhluuq ah mas waxay ka aaminsan yihiin quraanku inuu yahay kalaamkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qadiima inuu yahay si marka mas'alatul kalaam aan u fahamnana yaani mas'alatu hulul hawadith oo asalkaas aan u fahamno waxaan ku qasbanahay mas'aladaas quraanka marka hore inaan sharaxno si u hoos galaysa asalkaasna aan sharaxno aan cadeeno quraanka inay ka aaminsan yihiin inuu yahay quraanka oo yaani kalaamkii Ilaahay ah subhanahu wa ta'ala waxay ka aaminsan yihiin quraankaas inuu yahay hadith inuu yahay makhluuq in quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu uumay xaraf iyo sood inuu ka kooban yahay xawaadistaas oo quraankaas xadiiska oo Ilaahay uu uumana daatada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku qumay oo uu ku soo duriyay waxaan ka soo qaadanaynaa marka fikirka quraanka ay ka aaminsan yihiin masaadirtooda marka koowaad ka soo qaadanaynaa masdarka ugu horeeya oo aan ka soo naqlinahay waxa weeye kitaabka loo yaqaan majmuucul fatawa oo uu leeyahay ibn Taymiyyah wuxuu ku leeyahay kitaabka la yiraahdo majmuucul fatawa جزء اللحاد صفحة 328 فإن نفس الكلام كلامك إلهي نفتيسة أي هذه الصفة ونوعها صفة كلامك النوعين ليس بحادث ولا محدث ولا مخلوق صفة وحلية كلامك نوع إذا ما كان فيه يعني مفهومك إلهي سبحانه وتعالى إنه هذا الله نوع مركو كلية حكوة النوع يعني مفهومك كله أو إلهي إنه هذا الله مفهومك حادثنا معهن محدثنا معهن مخلوقنا معهن وأما الكلام المعين كلامك معين كالقرآن سيد القرآن كيو كله كلامك معين كهو إلهي وكوه الله سيد القرآن كيو كله فليس بمخلوق مخلوق معهن لا في ذاته ذات الإلهي من لقوء معهن ولا خارج عن ذاته ذات الإلهي مالك بحث من لقوء معهن بل تكلم الله كهض لي قرآنك بمشيئته دونستي سي وقدرته قدرتيس
wuxuu yahay marka quraanku haduu sa ilaahay ku uumin daatadiisii meel ka baxsan yani erayga khalqi uu diidan yahay khalqi wuxuu yaqaan ibn Taymiyyah sida qaarna hore aan ugu sheegnay waraysigii haddana aan cadeyn doono insha Allah ta'ala khalqi ibn Taymiyyah wuxuu yaqaan ilaahay subhanahu wa ta'ala meel ka baxsan wixii uu ku uumay wuxuu yiri marka bal takallama Allah wuxuu ku hadlay bimashii'ati doonistiisa iyo qudradiisa وهو كلامك حادث ومid soo duriyay وهو quraanku حادث mid soo duriyay way xaadisku fi daati ilaahay ku sugnaaday marka ibn Taymiyyah yiri marka quraanku waa xaadis soo duriyo daatada ilaahay ku sugnaaday ayuu wuxuu su'aal buu isweydiiyay quraanka ilaahay madaatiisu ku soo dursiyo ku uumay mase meel ka baxsan ilaahay ku soo dursiyo siyo hal yuqaalu malaleeya ahdathahu Allah quraanki waa soo dursiyo fi daatiisu ku soo dursiyo ala qowleyn wi laba qowl ba ku sugan asaxuhuma labaas qowl midka asaxa ah oo saxnimada badan annahu yuqaalu dhalika sidaas in la leeyahay way ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay qowlka asaxa waxa weey inaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku wuxuu ku soo dursiiyay quraanka asagoo aan jirinaa ilaahay wuxuu ku soo dursiiyay daatadiisa ilaahay ku soo dursiiyay wuxuu qaba marka ilaahay subhanahu wa ta'ala daatadiisa xawaadis inay ku qumto quraanku wuxuu yiri huwa xaadisun fi daatihi oo xagee xaadisku yahay ilaahay ku soo dursiiyay daatadiisa meel ka baxsan wuxuu yiri sida asaxa wax weey daatadiisa inuu ku soo dursiiyay minhaaj sunna sidoo kale mujalladka labaad safxada 379 ayuu ibn Taymiyyah wuxuu yiri asoo ka hadlay quraanki ومنهم من يقول روح دها يا كميده هو كلام إلهي يقع وحو كدعا بمشيئته إلهي دونسيسي وقدرته وقدريس شيئا فشيئا شيء ودعا يعني إلهي وقرآنك دونه وكوه الله يا إلهي ودونه يدنه وكوه الله يا إلهي ودونه قرآنك وكوه الله يا لكنه الله لم يزل كمزول به متصفا به إنه كنت الإمامية هي كلامك فهو كلامك إلهي حادث الآحاد أحاديث وسودرس يعني كلامك إلهي كلام كسته معينه إلهي وكله الله يسير القرآن كوكله كلامك النبي موسى إلهي وكله الله يوكله كلامك معين كوه إلهي وكله الله أنبياء أو ملائكة إلهي وكله الله كلامك سبح الله أحاديث وسودرسي فهو كلامك قديم النوع سوى قديم يقول لي كلامك إلهي أحاديث معين كاسير القرآن كوكله وحادث لكن نوع أهانه قديمية مفهوم كإلهي إنه كلام إلهي قديمة وحنا اسكعد ابن تيمية لفتك كتبت سوى كعدي علمي عن منطقة كعد haddii afraadu ay xaadis tahay noocuna inuu xaadis noqonayo waayo waxa la yiraahdaa wujuudu nooci waa biwujuudi afraadihi nooca jiritaankiisu waa afraadiisa jiritaankeeda way marka ibn Taymiyyah markuu leeyahay quraanka iyo kalaamka ilaahay xaadis waa xaadis amma noociisu waa qadiim hadda noociisu waa qadiimtaas waa talbiis iyo tamwiih oo dadku ku sameeyanayo ma ahane nooc qadiim ma noqon karo mana jiri karo asagoo afraadi aysan jirin marka hadii mar uu qray afraadi oo dhan inay xaadis tahay waxa ku laasimaysa inuu qoro noocuna inuu xaadis yahay idan wuxuu qabaa dhammaan quraanka ilaahay oo dhan waxa ku laasimaysa laazim bayin bil macna al-akhas dhammaan quraanka ilaahay iyo kalaamka ilaahay dhamaantiis inuu xaadis u yahay oo aslan ba ilaahay kalaam qadiim oo sugu tilmaanay amma nooca qadiima afraaduna waa xaadis waa wax aqliga iyo badiyada musaadameynaya bal ayaga laftirkooda yani xukamada haday noqoto yani falaasifada ibn Taymiyyah masaladan ka soo qaatay laftirkooda cadeeyay in noocu uu sajiri karin afraad la'aanteed ibn Taymiyyah masaladan saan arki doono aan ku cadeyn doono muhaadaraadka xulul xawaadis aan uga hadli doono wuxuu ka soo qaatay falaasifo ka soo qaatay ibn Taymiyyah masaladan yani masaladan kitaab iyo sunno kuma soo arorin wax la yiraahdo qadiim oo nooc xaadithul aahad waan ka hadli doonaa masdaru talaqi inda ibn Taymiyyah waxa ka soo qaatay majuusta wuxuu ka soo qaataa karaamiyada wuxuu ka soo qaataa nasaaradii krishtanku wax ka soo qaataa يعني ابن تيمية wuxuu isku dayay mutakallimiintu wuxuu isir raddi oo naqdi markaasuu wuxuu isku dayay marka waxay la tagtay arintii inuu falaasifadii wax ka soo qaato wixii falaasifadu ka soo qaatana si sax ah umuusa isticmaalin asaga marka wuxuu soo durusiyay oo diinka Ilaahay ku soo durusiyay ashiyaa bid'a ah bal qaarkood kufri iyo dalaalad uu yahay oo ay kamid tahay mas'aladan laftirkeeda qawaacid badan oo ku dhisay waana masaa'il kitaabkii sunnada midna aan waafaqsanayn marka aimada ahlu sunna mutakallimiinta way cadeeyeen in is suurtagal ahayn yani ahadi inay intay xaadis noqoto noocina uu qadiim noqdo laakiin hadda ka soo qaadan maayo aimada ahlu sunnada ayaga laftirkooda kuwa kamida ayaa cadeeyay mas'aladaas in ay suurtagal ahayn in intii nooci uu qadiim noqdo afraadiina ay xaadis noqoto in ay suurtagal ahayn tusaale ahaan ninkan la yiraahdo Maxamed Khaliil Harras oo kamid ah yani rag ugu waaweyn uguna cilmi badan nimankan wahaabiyada ah kitaabkiisa wuxuu ku yiraahdaa ibn Taymiyyah as-Salafi mas'aladan asoo ka hadlay wuxuu yiri inna ibn Taymiyyah qad bana ala hadhihi al-qa'idati ibn Taymiyyah wuxuu ku dhisay qaacidadan oo ah qadiimu nooc hadith al-ahad kathiran min al-aqaa'id in badan aqaa'idka kamid uu ku dhisay mas'aladan waja'alaha miftahan li hal mashaakil kathiratin fi ilm al-kalam mas'aladan wuxuu furo uga dhigay mashaakil badan oo ilm al-kalam ah inuu ku xalliyo
محيي مركب محمد خليل الهراس وهي قاعدة لا يطمئن إليها العقل كثيرا وأنا قاعدة وحي قاعدة ابن تيمية ودكسدي عقله إن بدن كحسل ما هي وهو عقلية صحيحة وآمن كرم معهن ويحيي فإن الجملة ليست شيئا أكثر من الآحاد من الأفراد مجتمعة جملة أولية النوع كان وحك بدن أفرادي اسكتكتي وحك بدن معهن فإذا فرض أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطعا haddii marka aan niraano afraadi mid kasto kamid ah waa xaadis si ibn taymi uu leeyahay quraanka afraadis mid kasto kamid ah waa xaadis wixii yiri jumlada oo nooca ahna inay xaadista ka dhalanayso si qadcan goonaan iyo shakil aan marka maxamed khaliil al-harras laftirkiisa salafiyada kamid ah ayaa ku naqdinayo dhahaaya qaacidadan ibn taymi uu degsado ah qadiimu nooc xaadis al-ahad in badan wuxuu leeyahay masaa'il aad u badan oo aqaa'iduhu ku dhisay waana mas'alo wuxuu leeyahay aqliga saliimka uu ku xasilin waayo hadaan niraano afraadi waa xaadis noocu واسل افرادي اسكو تagtay way nooc ma aha wax afraadi ka baxsan nooc xaadis inuu yahay ka dhalanayso idan meesha waxa ka soo baxda marka ibn taymiyyah inuu aaminsan yahay kalaamka ilaahay oo dhan inuu xaadis yahay oo asagoo aan jirin marka hore u jirin inuu soo duriyay yani ilaahay subhanahu wa ta'ala sifatul kalaam wax ku soo duriyay inay tahay ay qadiim ahayn waana sida hadda uu aaminsan yahay oo ibn taymiyyah wuxuu aaminsan yahay iraadada iyo kalaamka iyo samca iyo basarka sifaadkaas oo dhan wuxuu aaminsan yahay inay yihiin sifaad xaadis ah oo soo duriyay inay yihiin ayuu aaminsan yahay marka aqwaasha ibn taymiyyah hadaan sii wadno oo ku saabsan mas'aladan mas'alatul kalaam waxaan ku soo khatimaynaa markii ibn taymiyyah uu ka hadlo oo yiri ilaahay quraanka wuxuu ku soo dursiyay daatadiisa su'aal buu is weydiiyay markaas waxa imaanaysa ilaahay quraanku daatadiisa ku soo dursiyay hadaan niraahno ilaahay xawaadis iyo inuu ku qumaan waxyaalo oo soo duriyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala daatadiisa ay xawaadis ku qumto wixii hadda xawaadis ku qumana waxa ka imaanaysa inuu wax makhluuq noqdaano wax soo duriyay ay noqdaan markaas uu yiri fa in qultum lana hadana dhahdaan qad qultum waxa dhahdeen biqiyaamil xawaadis bi rabbi wakiina waxa ka dhalanaya ilaahay xawaadis inay ku qumto sidaas hadana dhahdaan bi ibn taymiyyah qaaluu lakum waxay leeyihiin nacam ilaahay xawaadis ku qumto bidin leeyahay saasan ku jawaabana وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل كان هو قول كان شرعيga iyo aqligu uu tusiyay oo aqliga iyo sharcigu waxay tusinayaan buleey ilaahay xawaadis inay ku qumtay yani waana cadeen doona qowlkaas inuu yahay qowl baadil ah sidoo kale isla kitaabka islaamkiisa wuxuu ku yiri meel kale feeda qaalu lana hadayna dhahaan fahaada yalzim waxa ka laazimahay warkan an takuna alhawadith qaamat bi ilaahi hawadithina ku qumtay qulna waxa leenahay waman ankara qablakum min salaf wala imati oo yaan ka wariyo in kara ilaahi hawadithina ku qumto wa nusuusul qur'aani wa sunnati tadamanu dhalika ma'a sahih al-aql nusuusta qur'aanka iyo sunnada keenay soo leeyahay iyo aqliga sariixa ilaahi hawadithina ku qumayso marka ibn taymiyyah wuxuu cadeynayaa yani ilaahi subhanahu wa ta'ala xawaadisna ku qomto quraanka inuu xadiis yahay sidoo kale wuxuu diidayaa quraanku qadiim in la yiraahdo wuxuu ku yiri kitaabka majmuuc al-fatawa mujalladka shanaad safxada 533 markuu ka soo hadlay yani aayimadii waxay ka qabaan kalaamka buu yiri walam yaqul ahad minhum ahad aayimada salafka kamida ma dhihin an al-qur'aan qadiim quraanka qadiim ah ahad aayimada salafka kamida ma dhihin quraanka qadiim ah yani saayibo kulliya uu galinahay wa anna wuxuu yiri wa awwal man shahara anhu annahu qala dhalika huwa ibn kullab qofkii ugu horeeyo ay ka shuhurowday inuu yiraahdo quraanku waa qadiim waa ibn kullab waxa aragnaa in badan wahabiyadan Soomaaliya joogta inay dhahaan annagu waxa qabnaa quraankii inuu qadiim yahay oo san makhluuq ahayn oo saxaadis ahayn ashaacirada waxay qabaan quraanka makhluuq inuu yahay oo wax xadiis soo duriyo yahay ibn taymiyyah arintii cagsiga uga dhigaya wuxuu leeyahay annaga qabnaa quraanku inuu xadiis yahay ahad salafka kamida ma wadhiin quraanku waa qadiim wuxuu leeyahay kullaabiyada waxay dhahaan ashaaciradu waa kullaabiyo waxay wax ka soo qaataan ibn kullab ibn taymiyyah wuxuu leeyahay kullaabiyada oo qofka dadka ugu horeeyay oo yiri quraanku waa qadiim ah ayagu hadda ku dhahay ashaacirada iyo kullaabiyada yaa quraanku makhluuq inuu yahay ibn taymiyyah wuxuu leeyahay dadka ugu horeeyay yiri quraanku waa qadiim oo ay ka shuhurooday waa ibn kullab buleey marka waxa ka muuqata yani madhabkoodan inaysan aqoonin madhabkii ashaacirada inaysan aqoonin yani qolayaha dhahay waxaan qadinaynaa ashaacirada qadinaynaa oo annagu waxa qabnaa quraanka qadiim inuu yahay ashaacirada waxay qabaan quraanka inuu yahay makhluuq yani ibn taymiyyah wuxuu leeyahay annaga qabnaa quraanka xadiis inuu yahay kullaabiyadii ashaacirada waxay qabaan inuu quraanku yahay qadiim inuu yahay ayaga ugu horeeyay dadkii quraanka qadiim ku sheegay marka si aan ugu dheeraan warkaas ibn taymiyyah yani kitaabadiisa uu ku sii cadeeyay in badan oo kamid ah yani quraanku xadiis inuu yahay qadiim uu ahayn